guriga nimankan gelayo waxa ku nool nin la yiraahdo Xuseen Somali oo xaafadan aad caan uga ah wuxuu ii sheegay in tafiirtiisu ilaa 100 qof imika ay ka badan yihiin Xuseen awowgi ayaa waqti uu ku qiyaasayay ilaa 1890 yimi wadankan Hindiya Xuseen hada dhaqankii Soomaalida wuxuu ka hayo ayaan ka wareysan doonaa iyo waxa uu ka yaqaano laakiin arinta kale cajiibkii waxa weeye in Xuseen uu noo kala turjumayo maadaama Soomaaligiisu waad yaad u liito nin isaga asalkiisu uu Hindi yahay asalkiisu markaan leeyahay Hindi yahay aabihii waa Hindi Shakiib Cabdi Jabbaar baa la yiraahdaa aabaha iyo aabihii bank Hargeysa ka wada shaqeyn jireen Shakiib hooyadiina waa Yamaniyad Shakiib ilaa dugsiga sare waxa uu ku dhameystay magaalada Hargeysa dabadeedna wuxuu isku tilmaamay isagu inuu Soomaali yahay Shakiib baa noo kala turjumaya bal hadda Xuseen waxa taariikhdii uu ka hayaan eegno waa guriga Xuseen uu degan yahay bal hadda Xuseen baan arrimaha aan idin sheegay kala sheekaysanayna السلام عليكم حسين سكورن سمو wanaagsaneed حسين aniga Cabdisalaam Harri baa la yiraahdaa television universal la yiraahdaa ayaan ka shaqeeyaa af Soomaaliga ma taqaanaa ninkan waa ninkan idin sheegay Shakiib Cabdi Jabbaar walaal Shakiib iska waran soo wanaagsan khayr weey sheekadeenna iska bilaabanaa fariisana guriga waxa degan Xuseen iyo qoyskiisa qaar kamida Xuseen waxa ku tahay Shakiibow aad iyo aad baad u mahadsan tahay gurigaaga aad nagu marti qaaday आपको बोलते बहुत बहुत शुक्रिया आपके घर में हमारा लिए दरवाजा खोल दिया और चाय पिला दिया और ये भी खाना भी है كل هي عنتنا ويكتم بيشا أدي أبغى ما تصنفي ده बहुत شكرا وحوي نوما هانجا وميت نجمة آيات هاي سوماليات ونصوب وضعي الصومالية حسين بحكي يقال هرت مجلس وحسين صومالي وحافظ دون نوعان كجيه هاي الصومالي بحكي يقالنا आपको बताएं आप मशहूर आदमी हैं पूरे दुनिया आपको जानती है नाम से लेकिन कोई नहीं जानती कौन है हुसैन सोमाली आप सोमाली लैंग्वेज से क्या जानता है सोमाली लैंग्वेज में क्या जानता है आप स्कोर नवत वरिया फलिसु गीसा मगा इन ताऊ शेगा अयुकया आप सोमाली का تاريخ دي فهم لجود يقولت هالكي يمدين هاي نوغش كيف आप मालूम है कुछ अब देश में जो आपके दादा यहाँ आया और 1965 में आया शादी 1865 क्या आयु होगी सो गलाई وكل سداد بقول يشن يلحدن كي أيوة وجيم ها وقت لا حقوق كي يمدين किधर से आया दादा नूर अहमद मगन जो है तो बरबरा मुल्क सोमाल बरबरा قتي تلي يكسر كذا بويدي بربرو كسر ضافي أوجا بحال أوريجريدي आपके दादा का नाम क्या था नूर अहमद मगन نور أحمد مجان نور أحمد مجان مركا سبب تهال كانوا يجيب محي هيدا क्या सबब था तुम्हारा दादा को इधर आने के लिए इंडिया में यानी ब्रिटिश का दौर था जब और जो निजाम गवर्नमेंट था इधर यहाँ पे सब सोमाली यमनी सब आते थे जेश में थे हाँ كل هؤلاء وجوها أرمجي سومالي دكنا واجي بريتش كا كاسا كلتي واي حق بقرطوية هاي البطي عيدمو ده سيو كملها مال هيك لا عيدمو كيما دين ده وقتها और किधर से दूसरा हम सोमालिया की तरफ से और किधर आए इधर यहाँ पर हाँ यहाँ पे मजरतन आए डुलबहंती आए थोड़े वर्संगली आए और खबरजालू आए खबरजालू वहाँ पे भी है इसी गार्ड में है كل هاي ملك الدون أو قبائل الدون بايمي حافظ كله نتبوي ولا بنتين من تشوفن عروس ولا شوكتا on يجوا هذا الصومالي جرينين أو قبيلة اللي جرينين هذا اسمه مقعبة هندي لكن حافظ لي ده أي سيجار واحد ده كان مثله يسمونه الصومالية قبائل كوشيجي لكن دفع ساكت السراير مشارتين ورسنجلي والبهانته वर्संगली भी आए थे और खबरजालो भी है खबरजालो كل واحد صدوم وجه مادين لكن their grandfather they pass away
but this new generation they don't know about the tribes and that one. jiilasha cusub wuxuu yidhi dadkaasi ay ka tegeen iminka ma yaqaanaan halkay ka soo jeedaan laakiin intii waa weynayd ayuunbaa taqaana dabeedna awowga imise qofku ka tegay dee आपके दादा जब इधर आया हाँ कितना छोड़ लिए चले गए इसको आप लोग को कितना आदमी लगता है फैमिली से खानदान से ये हमारा जो है बाप था हसन बाकी सब मर गए थे हसन की औलाद हमें मोहम्मद अहमद हुसैन अहमद मर गया मोहम्मद है हुसैन दो ही है intaas ka tegey awoogiin imise qof ya waxaan ahayn laasha afar qof way sheegay मेरी औलाद wuxuu ku leeyahay anigana hadda awlaadkaygu waxa weyn waa 8 boys and 3 girls waa 8 wiil iyo 3 gabdhood afid putra badri all markaan anigu waxaga ku tiriyo waxaga markaan ku tiriyo iyo inta intuu dhalay iyo intii sii dhaleen ilaa waxaan nahay 45 qof ما شاء الله ما شاء الله waxaad ku tiraahdaa waxa la ii sheegay isagu inuu abtirsiimadiisa yaqaano का इनको बोले मिस्टर हुसैन मशहूर है और मशहूर से भी ज्यादा इसको आता है इसकी दादा की दादा की नाम वो हमको बता सकता है नौ शेख दे हुसैन हसन सईद नूर अहमद मगन समक्काब रोबले अबार उगाट उमर उमर अब्दुल्ला इस्माइल इस्माइल अर्रे सईद गरहजिद हबरनूर उगाट उमर रेर हारून अहमद ما شاء الله ما شاء الله وحي نقول هيا صدق كبرتي ده अब जब आपने यहाँ पैदा हो गया और इतने पूरे नाम कैसे मालूम पड़ा आपको हमारा बाप माय फादर हाँ aabahay ayaa nooga sheekeyn jiray oo noo sheegi jiray waxyaalaha isagu ma tegay Soomaaliya आपने सोमालिया कभी भी किसी दिन गया सोमालिया नहीं मैं tegay दो बच्चे गए थे मेरे laakiin labadayda caruur ugu waaweyn Abdullah iyo Abubakar ayaa hargeysa tegay waxaanay la dagaayeen ilmo falaax महमूद डेरे से मिले वहाँ पे उगाड़ उमर शेख महमूद डेरे उगाड़ उमर kana way la kulmeen buu उसका वाइफ बल्दिया में काम करता waxa la ii sheegay in hablihiisa qaarkood ay Soomaali ka guursatay वो क्या बोलते हैं मैं सुना आपकी बेटी लोग भी सोमाली से शादी हो गया हाँ सोमाली एक दो बच्चियाँ साथ से करा एक अब्दियार जो लंदन में है लंदन का पासपोर्ट है उसका बरतानिया का और एक बिल्किस है वो जो है रबी फल्ला कनाडा में उससे एक बच्ची हमारी यमनी की है sadexdeeda gabdhood midna yamani baa qaba midna rabiic falaax baa qaba midna london bay degan tahay cabdiaar cabdiaar saaxiib baan ku dhahay वो बोलते हैं cabdiaar तुम्हारा बेटी का बड़े है मैं मेरा दोस्त है shkibo waxa aad weydiisaa dawladda hoose doorashooyinku isu taagay axsaabtu ka tirsan yahay meel la doortay isaga marna जो इलेक्शन आती है आप हमेशा खेलते हैं इसके लिए क्या लोकल गवर्नमेंट है या कौन से पार्टी है स्टेट गवर्नमेंट waa state government waa okay maamulka gobolka తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు waxa weeye inta aanay kala baxin Hyderabad waxa la jiray Andhra Pradesh laakiin hadda way madax banaanaatay waxa la baxday Telangana state intaan Telangana state ayuu xukuumadda qayb ku lahaa cod ku lahaa laba jeerna wuu soo bandhigay laba jeerna kamunu guuleysan waxaad weydiisaa kale waxa la ii sheegay in dadka asalkoodu Soomaalida yahay inay jiraan qaar kale oo meelo sare dawladda ka gaadhay वो क्या बोलते जितना आप सोमाली में है यहाँ ये है और सोमाली लोग जैसा कमिश्नर ऑफिस बन गए हैं बड़े बड़े ऑफिसर से है हैदराबाद में एक जो है खबरवल है साद मूसा उसका कबीला है वो जो है इब्राहिम उसका मूसा इब्राहिम है मूसा इब्राहिम वो जो है दूसरा और एक भाई उसका जो है वो सईद इब्राहिम डीसीपी है पुलिस को नqday madax u noqday हैदराबाद और दूसरा हमर हसन फारा जो है वो रिटायर होगा बुढ़ा होगा अहमद वो भी डीसीपी था इसको डीसीपी पुलिस का हाँ इसको डीसी पुलिस का युवा
waxaad tiraa sidan uu isagu imika u yaqaano xuseen oo magaciisa xuseen Soomaali yahay caruurtiisu ma u yaqaanaan halku ka soo jeedo जैसा आप आपसे कबीला मालूम है आपकी सोमाली का लैंड मालूम है ये सब मालूम आपके बच्चों को इतना मालूम है हाँ मेरे बच्चों के बच्चों को पोतरों को मालूम पोतरी जो है खुदन नाम है उसका उसके बुलबुल बोलती पूरे कबाइलों में وكله عروت إذا كسكو عروت الشيء درهم أيها شيء كانوا وعلا إذا تشيء الشيء أيها دي بدها وقصة كسر ما वो खुदन छोटी बच्ची है वाह वही नंबर कितने साल की है वो होंगे 11 साल 10 وكم سبنشير ويان دي بدها هم تقول بعده أي عروت كلا وفانتا أما وحنا هاي سو ما شاء الله ما تعلن لهاي إنه تجو قتيتلي आपको कोशिश आती है और जाने के लिए गतितले विजिटिंग के लिए सोमालिया इंशाल्लाह जाएंगे हमारा मुल्क है क्या बात इंशाल्लाह wan ku tala jirnaa waayo waa meel aan ka soo tafarrucnay ilmaha yarna waxa la ii sheegay inuu awoow yahay oo inantiisu ay dhashay ये बच्चा आपके बेटे की है नहीं बेटे का है पुत्र inankiisa dhalay नाम बोलो तुम्हारा नाम बोलो बेटा हाँ शुएब मूसा सोमाली शुएब मूसा सोमाली शुएब मूसा सोमाली ما شاء الله فريد شعيب موسى الصومالي يسقون قرنيا ها هو قرنيا قبيل في شيء هاي هو دقا سيدي يسقى لوجو دقاي أيوة يسقونا بولو خبرات وانا بولو شيخ بن سعد خبر يونس غير هارون محمد ما شاء الله waxaan jeclay intaynaan sheekada ka bixin isagoo xuseen aad iyo aad u mahadsan bal hadda shakiib qudhiisa inaynu ka yara sheekaysiino shakiib saan idiin sheegay aabbihii asliyan wuxuu ka soo jeedaa waddanka indiya hooyadiina yamaniyad bay ahayd oo yaman bay ka soo jeedaa shakiib isagu wuxuu isku tilmaamaa inuu yidhi Soomaaliya waana yahay shakiib isku xaafad baan ku dhalanay sidii furitaankii barnaamijkan idinku sheegay shakiib aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in mar kale Hyderabad aan ku kulanno shakiibow maystirida adduunyadan aadka isugu furmaysa adigaba tusaale waa hindi iyo yamani iyo Soomaali والله runtii aad waxaan ugu faraxsanahay aniga oo walaalkeen 35 sano oo kala maqnaan oo maanta isgarab fadhino Cabdisalaam waxaan kaga soo tagay isagoo maxaan miisaga isagoo 9 jira maantana waa adiga ka waxaad mooysan inuu ka yarhay أروح وادت في النجرنية. يا هي. مدين تلقى هالك دقنا دي مشكلة. وحنا دقنا شن صدق سنة. شن صدق سنة. في جدين صباح الصومالية. مركي أتسمي. أديكوا فين دقة مكواد اللي شفته. ها مكواد اللي شفته. ها. أفين دقة في الصومالية مكواد اللي شفته. قرتي مركي واحد يبغى كلمات كل من دينا ذاك الله قبض. كلمات كل من. إنك سوي الصومالي كل يرى. يا هذين كمان مش كهيس تشري. هاي. إيش لهذا تشري أنا إيش لهذا تشري الصومالي كانوا مدوبين. هاي. دايما والله صوبت هي مركب آجاد واحد يشكتها مركي Soomaalidu halka markii aad halka tibe ugu horeysay shakiibo maxaa kuugu daraa xagga la qabsiga maadaama ahayd markii ugu horeysay xaggan timaado wallahi walaalkayo gelin wadankiisa ku soo laabtay waxaan dhibaato la kulmay ma jirin laakiin Soomaalidii markii yimaadeen ayaan dhibaato kala kulmay qaaricaaya waa tahay saku caaya ha تقاري له أنا دولن شري هاي مركب موقال كاغري سومالي كومودي مركب سام وانا بقول سام أوديجا هنديجا هاي يا رب أنا كسي يكرر حقا دبضتنا مركب دبي وقاعدين أنا سومالي دبي وقاعدين موبايل على هذا نقدر له هاي واحد كورنتها إمك هذيكو قبل هندية وتقولشت ما شاء الله الله عبورة بعد لا باي أديكو كوال بشيء سيدا كون حسين أوجوي هاي أمور دلي ما يقارنان إن الصومالي كسر شديد أفصل الصومالي ويقرأ إن كسر شديد هو حنا يقارن أي يسكور نبض أنت سمعتنا هاي وقت جاء كلها بلا الصومالي جاي ينشرين قرتين كان كيبان شرين وسكول توشن قرآن كيبكوا يبيشين
أيام كأحدنا يا around the children أي اسمي ما تحافظنا هاي السلام عليكم أفيد يا بكرة وكم نك وحويان إنك حسين دالاي إنكيس Okay ما شاء الله My name is عبد السلام محمود عبد الله الصومالي ما شاء الله ما شاء الله محمود very nice to meet you हाँ محمود भाई आपको काम मालूम है सोमालिया के बारे में गया था सोमाली ने हरगिज़ हाँ ऊँट गई समा सोमालिया When I was so small, but I don't remember anything about it. What do you like it there? maxamuud wuxuu sheegay in isagoo yar uu tegay Soomaaliya laakiin wax badan aanu ka xusuusnayn aad iyo aad baad u mahadsan tahay